وبرنامجكي dhaqanka iyo hidaha ee VOA-da laanteeda af Soomaaliga dhegaystayaal mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka korreeco kamid ah tixaha tirada yar ee raaga ugaas naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh sidii cad dhadhan lahaa oo igu tagay ayaan u sii sheeksadaa tuduc walba waxa iga soo baxa macno cusub oo awal iga diimoonaa isagase weligiisba ku duugnaa madaxa iyo maankaba waxaan u ruxaa falsamada isku sargoynta meedisyada iyo xulasho wanaagga erayada ku habboon kolba ujeeddada ay maantaa diiraddu u saaran tahay markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii 19aad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay hase iska tira yaraatee wuxuu raaga inooga tegay maanse qurux iyo quluudba isku darsatay tixa ay midiba ujeeddo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada taal waxaa ka mid a qaar jacayla oo haddaanay iyagu jireen maansadeedii hore uu dareenkaasba gabaabsi ku ahaan lahaa waxaa iyagana laga hayaa tixa calaacala kuwo baroordiiqa tu ammaan farasa iyo kuwo uu ugu hadceliyey maansayahano kale oo ay ismaageen ujeeddooyinkaas oo badidooda la wada maqlay ka sokow raaga waxaa loo hayaa geeraar uu geela ku ammaanay kaasoo aan malaynayo sida kuwiisa kale inuusan soomaalida ugu wada dhex fidin sida uu u tirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u dhabagasho waa geeraar meelo dhowra kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geela ee ay suugaanta soomaalidu hodanka ka tahay ammaanta raagase tuqayaxan ma ahee wuxuu si kooban u soo bandhigayaa wax dheefka xaddiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa soomaalidii dhaqan jirtay ee xilligiisii iyo tii ka dambaysay labadaba habka uu u soo jeedinayo iyo qayb walba su-aasha aanu jawaabta ka sugayn ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay inaga timaado iyada oo gabyaagu aanu afka inoogu tirayn wuxuu sidoo kale raaga ku keliyaystay geeraarkanna uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafeed ee maanshaysa mar walba oo u milicsado kadimada horweynka iyo haleeladaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kashu ugu qabowdo waa beriga marka nirgaha ooda la isaga qaado ee ololkeedu uu isu baxo bal u fiirso oo ila dhadhanso ammaanta koobnaanta badan asii aan qabyada ahayn ee uu geela ku bantooqayo bal u fiirso oo ila dhadhanso erayada gooha wanaaja geedaha raaca iyo reere gobeeya ee saddexda tuduc ee geeraarka ugu dambeeya uu mid walba ku soo gabagabayn doono wuxuu yidhi gucgucdeeda arooriyo isku gaagixinteeda away gooha wanaajaay gurxankii habilaad cidka ooga dawaamay dayaxoo galka diiday dhulka ooga sariiray dhirta oo gabalkeediyo garaskiiba har waayey aana gaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne awageedaha raacaay xumbadii gadfanayd hadduu giirku dareeroo barqin loo gambaraasho adhina bowdka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa geshinkoode aw reere gobeeyaay xeryihii gingina dhinaca kale maansayahanada soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siin jireen baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu qooqan yahay muuqaalada la yaab kale ee uu la soo baxo hidahaas isaga ah raaga wuu ka bayray tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo wax dheefka lagu qabo ee awrka gurgur rarowga ama rarayga awrka ay soomaalidu u taqaan
gaadiidka aan la'aantiis qoys reer miyi ahi dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo doogi karin. dhammaadka geeraarka ayuu raaga inagu barayaa waxtarka uu awrkaasi leeyahay, habka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad, duunyo iyo saabaanba. wuxuu yidhi, gabxadaale liyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto, koronkeeda la gaato haddaan soo garbaduubo ganka loo kabadeeyo, ambaalkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xarga loogu gunto, in gadaan liya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gafdhaalay nirigtii iyo midka gaadha tolaayiyo kan gamuunka dareeyiyo gaaleefay mindidii, intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa. dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giijo, asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo, hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree. awe gaatamihii waxaa ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meelisadii uu ugu dambaysiiyey ee ahaa, dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giijo, asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo, hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree. awe gaatamihii. waagii geeraarkan iigu horraysay ayaan intii muddo ah isweydiin jiray, gurguurad iyo gaatamid midna meel fog laguma tegi karee, sidee buu gabyaagu labadaas eray uu socodka awrka ugu tilmaami karaa? sidee buu ugu sheegi karaa inuu yahay neef aan la gaari karin haddiiba socodkiisu uu gurguurad iyo gaatamid la mid yahay? waxaan ka badin waayay inaan u garto arrintu orod iyo dhabaabaco inaysan ahayn, dulucdii uu u jeeday ay ahayd xoogga iyo adkaysiga dheeraadka ah ee awrka lagu uumay. waxay ila noqotay inuu raaga u jeeday saanqaadkiisu gurguurad iyo gaatamidba ha u ekaadee, dad iyo xoolo wax awrka socod ugu babac dhigi karaa ma jiraan. waa sidaan u gartay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamida hadduu eebba idmo.